waxaynu joognaa sanadii 1285 waa dhalashada boqortooyo muslim Soomaali ah taasoo hantin doonta Saylac iyo ilaa Addis Ababa sababna u noqon doonta dhalashada boqortooyada difaacda diinta ilaa ay badbaadiso qabrigii suubanaha ee Kiristaankii Boortaqiiska iyo Itoobiyaanku ay weerarka ku soo qaadi lahaayeen kadib asaasidii Sheekh Cumar Dunyahuus uu dhidibada u taagay boqortooyadii Ifaad 1285 hadafka boqortooyadu waxa uu ahaa ka hortagida Kiristaankii isbalaarinayay una socday awdida albaabkii diinta islaamku ka soo galayay qaaradda Afrika waa magaalada Saylac Ifaad oo dadaal dheer ugu jirtay mideynta dhulkii muslimiinta ee Kiristaanka Itoobiyaanku dhibka baan ku hayeen ayaa aasaasay ciidan xoogan oo sida la sheegay ka koobnaa 20,000 oo ciidanka dhulka ah iyo 15,000 oo fardoolay ah dagaaladii xabashida iyo muslimkii Ifaad ayaa bilowday kadib markii boqorkii Masaarida waagaasi ninkii lagu magacaabi jiray Al-Nasir Muhammad uu bilaabay iskana xilsaaray fidinta diinta islaamka isagoo go'aan ku gaaray in dhulka xukunkiisu ku fidsan yahay aan lagu arag diin aan muslim ahayn waxa uuna gubay kaniisadihii ay Kiristaanku ku lahaayeen dhulkiisa waxa uuna ugu yeeray diintii suuban ee islaamka Kiristaanka Itoobiyaanka oo ka caraysan falalka Al-Nasir Muhammad ayaa warqad u diray xukunkii Al-Nasir iyagoo ku hanjabay haddii aan la joojin kubidda kaniisadaha iyo la dagaalanka Kiristaanka inay iyaguna layn doonaan dagaal la ku qaadi doonaan muslimkii Ifaad sidoo kale ay biixireen ku sameyn doonaan biyaha wabiga Niil Suudaankii Ifaad oo ka jawaabay hanjabaadii xabashida ayaa amray jihaad ka dhan ah Kiristaanka Abasiiniya duulaanna ku qaaday dhulkii boqortooyada Abasiiniyiinta isagoo oo burburiyay kaniisado badan jab weynna u geystay Kiristaankii sidoo kale Suudaankii Saadiq al-Diin ayaa xurriyadii ka xayuubay markii dambana birta ka aslay erga uu soo diray boqorkii xabashida ninkii lagu magacaabi jiray Anfansiyoon kadib markii ay diideen inay soo muslimaan xabashida ayaa jawaab ahaan dagaal ku qaaday gobolka Shaawa kaasoo dadka degan ay u badnaayeen muslimiin dagaalo iyo taariikh badan ka bacdi 1376 waxaa xukunkii saldanada Ifaad la wareegay Suldaan Sacad ad-Diin Muhammad waxa uu sii waday dagaaladii iyo jihaadkii ka dhanka ahaa xabashida ilaa 1403 uu ka dhintay Saylac saldanadii Ifaadna ay daciiftay dagaalo isdaba joog oo Kiristaanku ku hayeen awadeed haddaba soo rogaal celintii faracii boqortooyadii Ifaad iyo asaasadii boqortooyadii jabisay Boortaqiiska iyo Itoobiyaanka kana hortagtay weerarada Kiristaanka ugu qorshaysnaa qabriga suubanaha ayaynu kaga warrami doonaa fadhiga kan xiga biidnillaahi al-baari